kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamiga ah qodobada aad maanta macaawa wararka ku daawan doontaan waxaa kamid ah duqeyntii iyo dagaalkii cuslaa ee ka soconayay deegaanada gobolada dalkaasi Syria ee ciidamada Turkiga wadeen oo wali si xoogan u soconaya deegaano badan oo ciidamada dalkaasi Turkiga ay qabsadeen iyo kooxda YPG oo iyaguna guulo sheegatay dagaalka cuslaaday sidoo kalena qodobada kale waxaa kamid ah daawadayaal dunida oo si weyn uga hadashay dagaalka Turkiga uu galay iyo dalal markaasi ku kala qaybsamay sida xaaladdu iyo Mareykanka oo isaguna arrintaasi ka hadlay Faransiiska Iran dalalka kamida dalalka Europe Carabta dalalka kamida oo arrimahaas ka wada hadlay dhamaantood sidoo kalena daawadayaal waxa ku daawan doontaan dalka isku tagga Imaaraadka Carabta jabhad uu taageero si weyn u taageero oo dalka Yemen ka tirsan ay ku dhawaaqday inay afgambin doonto dawladda madaxweyne Cabdirabbi Mansour qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan dabcan waa 22 isniin bishii Janaayo sanadkii 2018 kol kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta iyo caalam aan ku bilownaa telefoonada aqalka cad looga arramiyay dalka Mareykanka ayaa bedelay codkii ku duubnaa kolka uu soo dhaco telefoonku dabcan waa hadalkii cajiladii ku duubneed ee markaasi fariin tahay telefoonada aqalka cad ayaa lagu duubay cod lagu eedeynayo dimuqraadiyiinta kaasoo lagu bedelayo codkii kolka telefoonka laga qaban waayo ama telefoonka uu markaasi sida uu dhacay laga qaban waayo kasoo boodi jiray mashiinka markaasi ama telefoonka cajalada ku xiran Mareykanka ayaa bartamaha kaga jira xidhida howlaha dawladda taasoo ay ka dhigaysa qaar badan oo kamid ah adeegyada dawladda kuwa shaqo la'aan ah kadib markii la joojiyay dhaqaalihii iyo lacagtii ay ku kala socotay balse dadka soo wacay aqalka cad qaybta fariimaha lagu duubo ayaa waxaa loo sheegay in dimuqraadiyiintu ay eed iska leeyihiin taasoo fariinta ay noqotay mid yaab leh fariintan la duubay ayaa dadka soo wacay waxaa loo sheegay in wicitaankooda aan laga jawaabi karin sababtoo ah baa layidhi dimuqraadiyiintii ayaa lacagihii dawladda u haysta baa layidhi afduub fariinta la duubay ayaa waxaa lagu xidhay telefoonada loogu talagalay inay soo wacaan dadweynaha islamarkaana ay ra'yigooda ka dhiibtaan nasiib darro kama jawaabi karno wicitaankaaga maanta sababtoo ah koongareeska dimuqraadiyiinta ayaa haysta lacagihii dawladda oo ay kamid yihiin baa layidhi lacagihii loogu talagalay ciidamada iyo arrimaha kale ee ammaanka qaranka waxaana afduub loogu haystaa arrimo aan la xiriirin dooda waxaa sidaas lagu sheegay fariinta lagu duubay markaasi khadka telefoonka dadweynaha ee aqalka cad loogu talagalay in lagu hadlo iyadoo ay ugu wacan tahay baa layidhi caqabadaha howlihii dawladda waa la xidhay sidaas ayaa cajalada ama hadalka fariinta ku duuban uu kusoo gabagabeynaya taasoo ka dhigan in markaasi ay faafinayaan dawladda aqalka cad ee madaxweyne Donald Trump arrimo sharci ahaan aan sax ahayn marka la eego in telefoonka dadweynaha fariintaas in lagu duubay khalad tahay qaar kamid ah dadweynaha ayaa kasoo horjeestay carana ka muujiyay Mr Trump sida uu arrintan uu maamulay iyagoo aaminsan inuu arrinta ku saleeyay xisbi gaar ahaanna uu ku dabaqay fariimo loogu talagalay iyo adeegyo loogu talagalay kuwa dadweyne uu ku dabaqay kuwa siyaasadeed sidoo kale saxafiyiin badan ayaa baaray arrintan oo ka tirsan warbaahinta Mareykanka qadka telefoonka ayaana aad mashquul u ahaa sabtidii iyo axadii ka hor intaan la ogaanin ama la xaqiijin arrintan meesha ay salka ku hayso joojinta ay dawladda shaqada joojisay ayaa bilaabatay saqdii dhexe ee jimcihii kadib markii xubnaha koongareesku ay ku guuldareysteen inay ballaariyaan lacagaha la siiyo dawladda federaalka ee dhexe khilaafka xoogan ayaa ka dhashay lacagaha loo qoondeeyay ammaanka xuduudda lacagaha la siiyo militariga iyo sidii loo difaaci lahaa dadka muhaajiriinta aan haysan markaasi sharciyada ee waraqaha aqoonsiga gaar ahaan kuwa barnaamijka la yiraahdo Deferred Childhood Arrivals oo loo yaqaano DACA oo ah dhalinyaro iyagoo yaryar oo caruur ilmo ah soo gaaray wadankan Mareykanka haddii aan arrintan waxa laga gaarin ayaa 100,000 oo shaqaalaha dawladda dhexe waxa ay ku qasbanaan doonaan inay aadaan fasax lacag aan ah ilaa iyo inta la xalinayo qatiyatan waxaana wali ay markaasi maalinta saddexaad ku siqaya iyadoo aan wali dawladdu aysan haysan qarash ay ku fuliso hawlaheeda ku kala wada hawlaheeda halka nagala socotaana waa Horfadhi Media waa wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waliba warbixinihii ku saabsanaa ee dhinaca caalamiga ah ee dawladda dalkaasi Jarmalkana xisbiyada Jarmalkuna maanta waxay soo gabagabeeyeen in ay markaasi ay dhisaan dawlad wadaag ururka socialistaha ayaa u codeeyay si aqlabiyad leh inuu wax la qaybsado xisbiga midig dhexe ra'iisul wasaare Angela Merkel waxaa la sheegay inuu gaamiyay Angela Merkel ay ku farxday markaasi natiijada ka soo baxday iyadoo 4 bilood oo dawlad la'aan ah oo ka jirtay dalkaasi Jarmalka haatan ay u muuqato in la soo gabagabeeyay isla markaana dawladda dalkaasi Jarmalku leedahay la dhisi doono saacadaha soo socda
ra-iisul wasaaraha markaasi ama hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay ku mashquulsan tahay inay soo dhisto dowlad tayo leh sida la sheegay oo ku saleysan wax qayb iyadoo weli ururka socialistuhu uu qoondada weli ka shakisan yahay walow aysan haatan joogin meel ay ka noqdaan. arrintan ayaa meesha ka saartay in markaasi dhibaatadii xasaasiga ahayd ee dhinaca siyaasadda ee dalkaasi uu ka gudbay kaasoo ah dalka ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub isla markaana laf dhabar u ah jiritaanka lacagta Eurozone-ka ee dalalka midowga Yurub badankooda ay ku midoobeen. sidoo kalena dalka Jarmalka wuxuu muhiim u yahay in la fududeeyo bixitaanka dalka Britain oo ka baxay dalalka kale inta kale Yurub iyadoo markaasi ay heshiisyadii ugu adkaa weli aan si rasmi ah guul looga gaarin gaar ahaan kuwa ay Britain u fududeyn lahaa inay iska bixiso dhaqaalihii lagaga lahaa dalalka midowga Yurub iyo weliba qoondooyin kale oo la saaray iyo halka ay ku dameynayaan kumanaanka kun ee ruux ee dalalka Yurub kasoo jeeday ku dhaqan dalkaasi Britain iyo xuquuqda ay yeelan doonaan. halkaad nagala socotaana waa Hurfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida. dabcan daawadayaal intaynaan u gelin wararka faraha badan ee ku saabsan howlgalka dalkaasi Turkiga uu ka bilaabay dalka Syria oo dabcan ay dalal fara badan ka hadleen qadiyada isla markaana Turkigu ay iyaguna sheegeen goobaha ay qabsadeen. sidoo kalena madaxda Turkiga ay siyaabo kala duwan uga hadashay dalal kale oo iyaguna xataa siyaabo kala duwan qadiyada uga hadlay ayna horta sii wadnee koox ama jabhad ay taageerto dowladda dalkaasi Imaaraadka Carabta oo ah jabhadda dhinaca koonfureed ee dalkaasi ka dagaalamaysay ayaa waxay ku dhawaaqday in ay ka eri doonto dalka inta ku hadhay dowladda dalkaasi Yemen ee sharciga. kooxdan ayaa war qoraal ah oo iyo shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Cadan ee xeebta ah waxay ka dhawaaqeen in dowladda dalkaasi ay noqotay mid fadhiid ah oo isla markaana markaasi musuqmaasuq u daaliyay ama la degay bay yiraahdeen sida uu sheegay Idris Al-Subaydi oo ah madaxa jabhadda la yiraahdo Southern Transitional Council ama STC. wuxuu sheegay in jabhadoodu haatan iyo wixii ka dameeya ay dagaal culus la gali doonto maamulka madaxweyne Cabdirabbu Mansuur Hadi kaasoo ay sheegeen haddii aan sida ugu rasaha badan baarlamaanku aysan ku bedelin oo aysan booskiisa geyni bay yiraahdeen Axmed bin Daqar oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana aan madaxweynaha xilka laga tuurin ay dowladda afgambi doonaan. kooxdan ayaa waxay sheegeen in dowladda dalkaasi ay wado wax ay ugu yeereen wargelin xumaan iyo warxuma tashiil ku saabsan oo kasoo horjeeda bay yiraahdeen hogaamiyaasha koonfurta waxayna sheegeen in kooxdooda wax iska caabintu ay sidoo kale dalka geli doonaan xaalad degdeg ah gaar ahaan magaalada caasimadda haatan oo ah kumeel gaadhka ah ee Cadan iyadoo magaalada Sanca ay haystaan kooxda awoodda badan ee Xuuthiyiinta ee uu hogaamiyay Cabdimalik Al-Houthi kuwaas oo iyagu haatan si xoogan uga soo horjeeda in dowladda dalkaasi ay dib ugu soo noqoto magaalada caasimadda. ururkan cusub ayaa waxaa la sheegay in maalgelin xoogan ay siiyaan dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo iyaga ay hoos tagaan. lama yaqaano in madaxweynaha uu taageero Sacuudiga ee haatan fadhiya magaalada Riyadh ku sugan ee Cabdirabbu Mansuur Hadi iyo sababta ay uga soo horjeesteen kooxdan ay Imaaraadku taageeraan iyadoo aan la ogeyn inay tan salka ku hayso kala duwanaansho Sacuudiga iyo Imaaraadka soo kala dhaxgalay iyo inay kooxdan iskood iyagu u falaagoobeen. haddana waxa wararku ay sheegayaan in dowladda dalkaasi Sacuudi Carabiya oo weerar ay ka bilowday dalka Yemen aan guul badan laga gaarin tan iyo bishii saddexaad sanadkii 2015 ay haatan ku howlaneed baa leeli inay kooxaha koonfurta ay midayso si markaasi la sugu dayo in si loo helo baa leeli qaab uu lagaga tuuro xog awoodda ama lagu wiiqo awoodda kooxda Xuuthiyiinta ee iyagu dalka inta badan haysta. dalka Sacuudi Carabiya ayaan arrintan weli ka hadal. sidoo kalena wargeyska la yiraahdo Middle East Eye ama isha ama indhaha bariga dhexe ayaa waxay sheegeen in qadiyadan ay ka turjumaysa baa la yiri iyadoo oo dhawaan waxa la yiri uu soo baxay baa la yiri kala duwanaansho kooxdan ama groupkan ciidanka ah ee goostay iyo waxa la yiri ninka gacanta ku haya dhaqaalaha sida gaarka u siiya Mohammed bin Sayed Al Nahyan oo asagu ah ninka dhaxal sugaha ka dalka isku tagga Imaaraadka Carabta kaasoo la aaminsan yahay inuu dhaqaalihii qayb ahaan ka gooyay baa la yiri kooxda maleeshiyaadka awoodda badan oo iyagu markaasi doonayay baa la yiri inay markaasi ay kala qayb qaataan dagaalka horeyna oo kala qayb qaatay. sidoo kale waxaa la sheegay in
governatorihii ama gudoomiyihii gobolka Cadan ay haatan ka qaadeen xilkii iyadoo markaasi ay kooxdan haatan doonayso waa leeyahay in iyaguna dagaal dhinaca kale uga dhuftaan magaalada Cadan ayaa ah xarun magaalooyinka waaweyn kamid ah magaalooyinka weyn ee kaliya ee gacanta ku hayso dawladda Cabdi Rabbi Xaadi waxaana soconaya baa leeyahay dagaal ka qarxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan iyo duleedka dekada markaasi weyn ee magaalada Cadan ee badda cas ku taala taasoo ay isku dirirayaan taageerayaasha Cabdi Rabbi Xaadi iyo kooxdan markaasi la baxday STC ee hogaamiyaasha koonfurta dalkaasi Yemen ay ku midaysan yihiin halka nagala socotaana waa Hurfadhi Media intana ka bixin wararka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa wuxuu soo saaray ama soo daabacay dhismaha cusub ee markaasi ballaaran ee ay ugu talagaleen madxafka ugu weyn inuu noqdo kan caalamka waxaana la sheegay in markii ugu horeysay oo laba khaladaad oo waaweyn lagu sameeyay waxaa la yiri qariirada loo sameeyay markaasi dhismahan qariirada ayaa waxaa la sheegay in lagu darsaday ama gebi ahaanba lagu darsaday baa qayb kamid ah dhulka dawladda dalkaasi Oman iyadoo oo museumkan ama markaasi waxa loo yaqaan madxafkan la yiraahdo Louvre ay muuqato in dawladda dalkaasi ay ku xadgudubtay baa la yiri dal ahaanta iyo wali waxa la jasiirado ay leedahay Oman kaasoo la gaarsiiyay baa sidoo kale waxa la sheegay in laga saaray qariirada in dalka Qatar oo gabi ahaanba qariirada laga tirtiray taasoo meel ka dhac ku abaalayri marka qariirada la sameeyo gacanka GCC ama dalalka ku yaala khaliijka gaar ahaan kuwa saaran Persianka in ay muuqdaan dhamaan dalalka oo dhan iyo kuwa xuduudda ka dhow waxaana muuqata in si kasma ah looga saaray jasiirad looga saaray baa dalkaasi Qatar oo aan lagu soo darin iyadoo amarkaas u bixiyay baa Maxamed bin Sayid Al Nahyan oo ah asagu ninka haatan asaguna sida weyn u qasaya dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta sida ay sheegayaan warbaahinta Carabta xeelerayaasha kamid ahaa kuwii wax ka dajiyay qaab dhismeedka markaasi madxafkan uu noqonayo ninka la yiraahdo Simon Henderson oo asagu madax ka maxadka markaasi qaabaynta madxafyada caalamka ee magaalada Washington ayaa wuxuu sheegay in ay tan noqon doonto mid markaasi xataa magacan la yiraahdo Louvre ee Faransiiska ay kala noqdaan heshiiska dalkaasi Abu Dhabi maadaama shuruuduhu ay kamid ahaayeen in dalalka ka agdhow oo dhan khariirada lagu soo daro isla markaana la muujiyo dal kasta inta mayl ee uu jiro madxafka waxaa la sheegay in arintan ay sidoo kale ay ka caraysisay baa la yiri dawladda dalkaasi Qatar oo markaasi iyadoo ka hadlaysa gabadha Qatar u qaabilsan ama u qaabilsan arrimaha dibadda afayeenka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar Sheikh Al-Mayasima bin Hamad bin Khalifa Al Thani ayaa waxay sheegtay in ay tani ay ka tijumayso sida dawladda dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabtu aysan aqoon darro uga ahayn waxa ay ugu yeedhay markaasi kasmada ay uga saartay qariirada dalkeeda waxayna sheegtay inay taas noqon doonto bay yiraahdeen mid lagu fashilmo oo dawladda dalkaasi Qatar aysan wax dhibaato u arki doonin balse ay meel ka dhac iyo fadeexad u tahay Imaaraadka Carabta in ay arrimaha dhaqanka xataa galiyeen siyaasadda waxaana sheegeen in dunida oo dhan ay ogtahay in marka madxaf noocaas oo kale laga dhisayo dhulka xuduudaha ka dhow ee la muujiyo dhamaan dalalka ku dhow qariiradooda iyo inta ay u jiraanba taasoo koonfur iyo bari iyo galbeedba dal kasta meesha ku xigo loo muujiyo xataa dadka soo booqanaya si ay u arkaan qaybta labaad ee wararkeena dabcan ayaa ku soo dhawaad doontaan waxaana daawadayaasha qiimaha leh u sheegaynaa inay kol walba qaybta labaad iyo qaybta koowaad bay isdaba socdaan daawadayaal tan iyo intaynu dib u hagaajinayno wararkeena isla markaana mustaqbalka dhow aynu ka dhigi doono ama saacado badan u dhaxaysiin doono hase yeeshee daawadayaal qaybta labaad ee wararka ayaan mar dhow idiin soo gudbin doonaa